ربودا اللي بحي وحا وبحي دادك كوحن عوانكي إن oo halka milyan ay gaaro Soomaali maxamed dadka report garay waa dareemi kartid please adinkana iga aara iwaankoodana habadka saar si aan isaana iwaankooda saar gabadhan oo lagu magacaabo Mrs Wall oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee isticmaala aaladda fasaadka badan ee TikTok ayaa laga saaray ciwaankeedii ay ku soo gali jirtay TikTok halkaas oo ay soo gali jirtay muuqaalo anshax xumo ah kadib markii ay gaartay 1 milyan oo followers ah waxay ka soo duushay magaalada Nairobi waxayna ka soo degtay garoonka aadan cadda airport si ay ugu dhigato halkaas xaflad ay ugu dabaaldegayso halkeeda milyan ee followers ka ah laakiin mar qura farxadii ayaa murugo isku bedeshay kadib markii ay weysay ciwaankeedii ay ku lahayd barta TikTok hooyada xaaskeeda iyo nabigaaga iyo hooyadaaba was ay dhalay kana maanta dhalinyaradeenu haday cadhoodaan waxay inayna muuqaal kale oo asaga fan galahaya waa wiil dhalinyaro oo ka soo jeeda gobolada waqooyi oo loo yaqaan Somaliland wiilkan oo wiil kale oo dhalinyaro ah xilli ay live ku wada jireen ay isnajaaseynayeen ayaa ku daray caydii aflagaadada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkan ayaa fariimo dil iyo hanjabaada waxa hawada loo marinayay 48 saac oo la soo dhaafay waxaa nasiib darro ah in uusan kaligiis ku ahayn dhalinyarada joogta Somaliland ee 24 saac ku caweeya nabiga calayhi salaatu wasalaam caydiisa iyo najaasadiisa gabdho badan oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland oo isticmaala aaladan cusub ee fasaadka badan ee Clubhouse ayaa sawir ay ku sheegayeen Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay soo saaranayaan profiilada kadibna nabiga ayay si cad oo aflagaadeynayaan dad halkan la soo gaartay muuqaalka si share garay like na saar mahadsanid